dawadayaal waxaanu halkan ugu soo gudbinaynaa gabay isagu ka turjumaya inay dhibaatooyinka uu geystay intii talada uu hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu kula kacay guud ahaanba shacabka Soomaaliland. Suugaantan ayaa koobaysa oo iyadu soo aruurisa macluumaadka tan iyo intii uu hayay xilka madaxweyne Muuse Biixi muddo cagacageynaysa 7 sano oo ay ka harsan tahay 2 bilood oo kaliya. 13 November ayuu xilku kaga eegyahay Biixi uu ku jiro xilligiisii gabagabada ah dhamaadka 2 sano ee lagu cumaamaday aqalka golaha guurtida iyagu xilku gabaygan ayaa muujinaya isagu guud ahaanba daawaca iyo burburka uu u geystay nimadii Soomaaliland. waxa kale oo suugaantani iyadu banaanka keenaysa taariikhda ay leeyihiin Muuse Biixi iyo korneelkiisa kale ee wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ay taariikhda kaga suntan yihiin. gabaygan ayaa isaga laftigiisa lagu soo bandhigay. waxa kale oo gabaygani muujinaya dadka shacabka ah ee iyagu rayidka ee haweenka iyo caruurta madaafiicda iyo BM-ka ay la dhaceen. waa tan iyo intii xilka hayay waxyaabaha uu gabaygan isagu banaanka soo dhigayo oo lagu tilmaamayo suugaantaas oo iyadu aad u muweyn. waxa kale oo muujinaya gabaygan waxa ay ka dhaxleen ama ay ka faa'iideen labadii beelood ee sheegaanta la isku oran jiray. waa haba jeclaya habar awal ee iyagu cumaamaday kursiga inuu madaxweynenimada madaxweyne Muuse Biixi uu cumaamaday maxay maanta faa'iido ka joogan. 2017 doorashadii ay shacabka reer Soomaaliland codkooda ku siiyeen inuu hogaamiyo ee cogteen kursiga madaxweynenimada Muuse Biixi Cabdi maanta may ku qasaareen mise way ku faa'iideen. natiijada maanta laga dhaxlay hogaamintii Muuse Biixi Cabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waa Quraxad Xasan Xaaji Maxamuud oo halkan waxaan ku soo gudbinayaa hadii Allah uu dalay ogolaado gabay dhageysi wanaagsan. ummada isu soo ururayo oo nu qabay dawlad oo olmiyiga taalay iyo tuulaba istaagtay oo subax intay oogsadeen duca Ilaahow leh oo kala dambeyn aadaha iyo horumar eegayay iyo urugaday soo mareen weliga lowsiya oo ariga geelay baxoo maalkii ka ilaaday oo aqaladood iyo guriyii BM ebersiiyay oo ay abaariyo colaad goysay dhexdooda oo odayad daaliye habriyo ubadbayaacayay oo ay talintoodii iyo amal ku raad joogay ama eeri dhaban geel sidii halaqad ugaansan kuwii Muuse aabow lahaa ee hadalkii waxay eersanayaan farii ololahoodii waatuu albaabada ku xidhay 2 ayaamood waxay maatadii ooyeysaa meel awaara ah. amankaag dadkii qaadiyo aamus baa dhacay argagaxe markii uu kursiga saacad ku ekaaye ilkihii iyo qaniyadii ayaan cidi ilaa weyne ilihii dhaqaalahana geey eheladiisii arki shaqo nafaan sacad ahayn odaygu siin waaye arrimaha gudaha seedigii bari ku eedooye ciidii waxaa loo igmaday duul aqoon darane awran hayinahayn ayaad agab ka saarteen ooriye walaaliye jabhadana lagu aafeeyay wax la yiri abeesiya askari aaminaad ma lehe afrikaanna wuu caadadii amar ku taagleyne ina kaahiniya Biixi baa loo adoon yahay 40 sano inay wateen una afduubnayne waxay aarariyadu ariyataa ubad masaakiine afarta jaha loo qaxo waa aleel qubane ooridii cigaalu ka tagay loo arxami waaye waa ka islaamii ka raray aqaladoodii wax la yiri ayeeyooyin baa oo bigiyimiye ridaana laga dhaafi karin wiil atooraahe kuwii eelka dhigay bay inta ku ag wareegaane ereygooda ruuxan tixgelin jeelka ku abaadiye erga iyo waxgarad iyo la diid culimo awdiine argagixiso lagu sheegay qofkii furay idaajaye abaarsana waxa lagu bartaa aalad kristaane uduba inoo dhaantay oo erey run weeyaane meel aar ka kacayba atoor fariistaaye riyaalana amaan buu lahaa aadahoo badane kulmiyana inkaar iyo jin iyo ugubi weeyaane kuwii Muuse aabow lahaa ee hadalkii waxay eersanayaan farii ololahoodii waatuu albaabada ku xidhay 2 ayaamood waxay maatadii ooyeysaa meel awaara ah. afweyniyo shabaab baa kuwa ka arxan roonaaye iyaga ataagii lahaa ee dhacay iyaga umulo iyo aroos yiri askaaxaye iyaga majhuunka aradan dhigay asaayaye iyaga indhool iyo curyaan jaray arwaaxaye iyaga islaamahan khatalay inamadoodii iyaga agoonteer cadiban aabahood dilay
iyagaa agoomahan cadiban aabbahood dilaye iyagaa asay saaray dumar idilahaantoode iyagaa badii iibsadiya eeriboodhada iyagaa ugaadhii gatiyo ubixi kaymaaye iyagaa islaamka isku diray ehel walaalaahe iyagaa ardaayadana godob aadan noo dhigaye iyagaa aqoonsigii dayacay saxar ku awdnaaye inkastoo ilaahay qoray aan axad la dhaafaynin waxaa fari imboortana inaad sababta eegtaane iyagaa dadkii iilka galay aakhiro u diraye iminkana intii soo hadhay ololinayaane armiga waxaa loo sitaa carankaa kacaye injir iyo qaniin weeye iyo dulin abaareede ayax iyo kaneeciyo ka daran diir uluufi ahe waxba gabaygu wiilo ordaye waxaan ku soo ooday ashkataan alliya heeg u nahay waa ribood adage insha allah dhaha maalmo dhow khayr kugu imane insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.